أصحابتها maanta waxaan joognaa masjidkii barakeysnaa ee Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ku yaala magaalada Madiina masjidka ayaan gudaha u geli doonaa taariikhdiisa oo runtii aad u koobanna waan idin la wadaagi doonaa maanta masjidkan ayaa waxa dhismihiisa bilaabay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaana uu haatan dhisan yahay in ka badan 1400 sano waxaana uu ku yaala magaalada Madiina ee dalka Sacuudi Arabiya dhismaha masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa mid si weyn loo qurxiyay iyadoo dhismaha masjidkani la geliyay farshaxanimo weyn oo la xidhiidha qurxinta dhismayaasha casriga ah ee dhan walba dhanka kale gudaha masjidka barakeysan ee nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa mid aad loo qurxiyay dhinac walba iyadoo baaxadda masjidkuna ay tahay mid aad u weyn qiyaas ahaan masjidka nabiga ee magaalada Madiina ayaa waxa uu qaadi karaa 1 milyan oo qof kuwaas oo ku tukan kara salaad walba waxyaabo kale cajiibka ah waxa kamid ah in masjidka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay salaad kasta ku tukadaan kumanaan kun oo qof kuwaas oo ku kala yimid daafaha caalamka goobaha ka agdhow masjidka ayaa waxa ku yaala hoteelo iyo goobo casri ah oo loogu talagalay inay degaan muslimiinta soo booqanaya masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam isla markaana ku tukanaya salaadaha marwaxadaha iga dambeeya aad wada arkaysaan waxa weeye runtii marwaxado aad u waaweyn oo masjidka nabiga gudihiisa ku yaala kuwaas oo loogu talagalay inay qaboojiyaan dadka waxa weeye muslimiinta soo booqanaya salaadana ku tukanaya masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabta waxyaabaha kale cajiibka ah ku arkay masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada Madiina waxa kamid ah in masjidka dhexdiisa ku yaala kadib intaasi waxaan booqday goobtii uu ka dhacay dagaalkii Uhud gaar ahaan buurtii ay saarnaayeen asxaabadii nabiga ee dagaalka ku jirtay calayhi salaatu wasalaam waxaan soo booqanay sidoo kale qubuuraha asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ku dhimatay dagaalka oo ku aasan meel aan ka fogeyn goobta uu ka dhacay dagaalka Uhud ku xunno Ayuub Show lana soco muuqaal cusub sidoo kale la soco muuqaalo cajiiba inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan kuwaas oo aan idinka diyaarin doono gudaha dalka Sacuudi Arabiya